kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay arrimaha bariga dhexe iyo Mareykanka oo ka laabtay go'aano dagaal kadib markii uu ku haftay dagaalka bariga dhexe ee lagu qaaday Iran. Maxaa ka jira in Israa'iil ay cabasho u gudbisay qaramada midoobay ay ku dalbanayso fadhi degdeg ah iyadoo Iran ku eedeysay inay geysatay xasuuq bini'aadanimo ee dowladda Ruushka iyaduna waxay cadeysay inay garab taagan tahay ilaalada kacaanka Iran isla markaana Iran ay xaq u leedahay inay iska difaacdo weerarka lagu soo qaaday. maxay tahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sababta uga haftay dagaalka bariga dhexe ugana laabtay go'aanada dagaal ee ka dhan ah Iran? Israa'iil ayaa ku eedeysay Iran inay isticmaashay bambooyin koox ah oo kala firdha oo mamnuuc ka ah dunida, waxaana ay dalbatay in la qabto kulan degdeg ah oo yeeshaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay. ciidamada Israa'iil iyo wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa xaqiijiyay in qaybo ka mid ah gantaalada Iran ay wateen qaraxyo koox ah oo kala firdhada, taasoo adkaysay in nidaamka difaaca Israa'iil ay ka hortagaan gantaaladaasi isla markaana sii kordhisay khatarta ay wajahayaan dadka rayidka ah kadib xitaa marka la qabto. isbahaysiga NATO oo isaguna xulufo la ah Mareykanka ayaa dhankooda dagaalka bariga dhexe ku eedeeyay inuu ku xayiran yahay Donald Trump oo ay tahay inuu guuldarrada qaato. taliye ku-xigeenkii hore ee guud ee NATO ee Yurub General Richard Sheriff ayaa yidhi Donald Trump waxa uu si buuxda ugu xayiran yahay dagaalkan ama waa inuu qaadaa tallaabooyin duulaan dhulka oo ballaaran taasoo ay adag tahay in la qiyaaso, ama waa inuu ku dhawaaqa guul beenaad siduu ceebta uga baxo. mana jirto waddo uu ku guuleysan karo dagaalkan. Ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil Ehud Barak ayaa isagoo la hadlay telefishinka Israa'iil ka soo baxay ee Janaayo 12 wuxuu ka digay in dagaalka ka dhanka ah Iran uu isu bedeli karo dagaal daaliye Israa'iil isla markaana keeni kara guuldarro waaweyn. waxa uu yiri dagaalada badan waxay ku bilowdaan guulo waaweyn ka hor inta aysan u leexan dagaal daal ah ama wada hadallo daciif ah ama xitaa ugu dambeyntii ku dhamaada guuldarro. Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan wada hadallo wax ku ool ah oo ku saabsan xal dhammaystiran oo gebi ahaanba lagu soo afjarayo dagaalka Iran. waxaa sidoo kale uu sheegay inuu dib u dhigay dhammaan weeraradii military ee lagu beegsan lahaa xarumaha korontada iyo kaabayaasha tamarta Iran muddo 5 maalmood ah. qoraalka uu ku daabacay bartiisa Truth Social ayuu ku yiri waxaan ku faraxsanahay inaan sheego in Mareykanka iyo Iran ay labadii maalin la soo dhaafay ay yeesheen wada hadal aad u fiican wax ku ool ah kuwaas oo la xiriira xal dhammaystiran oo gebi ahaanba lagu soo afjarayo colaadda bariga dhexe. balse dowladda Iran ayaa arrintaasi ka hortimid waxaana ay gebi ahaanba meesha ka saartay jiritaanka wada hadalka uu Trump sheegay iyagoo ku tilmaamay cataw inuu ku dhex weeraray dagaalka bariga dhexe. wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay waxaa lagu cadeeyay inaysan jirin wax wada hadal ah oo u socda Iran iyo Mareykanka kadib markii Trump uu sheegtay in labadii maalin ee ugu dambeeyay ay dhaceen wada hadallo wax ku ool ah sida baahisay Al Jazeera. war-saxaafadeedka waxaa sidoo kale lagu sheegay in hadallada Trump uu ujeedkoodu yahay in qiimaha tamarta hoos loo dhigo isla markaana waqti u helo qorshihiisa militariga. dowladda Iran ayaa dhankeeda ku dhawaaqday inaysan jirin wax wada hadal ah oo ay diyaar u tahay inay la gasho Mareykanka ilaa laga joojiyo duqeymaha lagu beegsanayo dalkeeda, magdhowna laga bixiyo dhammaan ficil kasta oo lagu dilay muwaadin Iiraani ah laguna burburiyay kaabayaasha militari iyo kuwa dhaqaale ee dadka rayidka ah. ciidamada cirka Mareykanka ayaa qeyrtay in duuliye ka tirsan ciidanka cirka Mareykanka uu ku dhaawacmay weerar ay ku guuleysatay Iran oo ay ku qaaday diyaaradda F-35 taas oo ay waxyeello ka soo gaartay 19 bishan.